habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh qodobada aan caawidiin hayna waxa kamid ah Puntland oo maanta dishay Daeshtii ugu badneyd iyo firxadka kooxda Daesh oo tiradii ka batay lagana soo qabtay xuduudaha Puntland dalalka ay ka soo jeedaan iyo sidoo kale sawiradooda ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale nin aad u qaali ah ayaa maanta ku shahiiday miina ay ciidamada u dhigeen kooxda Daesh iyo sidoo kale dhaawacyo ayaa jira ciidamada Puntland soo gaaray dhanka kale waxaan arki doonaa dawladda Soomaaliya oo wali wada hambaliyada ciidamada Puntland ee ku aadan guulaha ay ka gaareen kooxda Daesh balse aan wali caagad biyo ah ciidamada Puntland ku caawin iyo dawladda Itoobiya oo xarig kala daashay qaar kamid ah saraakiisheeda kuwaas oo ay ku eedeysay inay bixiyeen xog ku aadan heshiiskii badda oo ay wada galeen dhawaan Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed balse intaan warbixinadan oo faahfaahsan kula wadaagin waxa ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalkan like noo saarto sidoo kalena aad gambareelka furto si ay ku soo gaaraanin muuqaalada maalinlaha ee halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kula jira kooxda Daesh oo saaka ku jarmaaday kooxda Daesh ayaa dagaal dhex maray ciidamada dawladda iyo kuwa Daesh waxa kooxda Daesh lagaga dilay in ka badan 10 ka tirsanaa kooxda sidoo kalena waxa lagala wareegay goobo iyo sidoo kale saldhigyo hor leh goobaha ay maanta ciidamada kooxda kala wareegeen waxa kamid ahaa deegaanada qurac iyo sidoo kale damdamaale halkaas oo ay hadda ciidamada si toos ah ula wareegeen gacanta ay ku hayaan ciidamadii howlgalkan maanta sameeyay ayaa sheegay inay in ka badan 10 meyd ah oo kooxdu dagaaladii hore lagaga dilay ayna kooxdu ku qarisay godod ay arkeen taas oo ka dhigan in kooxdu ay qarsato jabkeeda soo gaara sidoo kalena ay ciidamadu ogaadeen inay kooxda jabkii hore ee la filayay jab ka weyn ay soo gaartay dhanka kale firxadkii ugu badnaa ee ka tirsan kooxda Daesh ayaa la soo warinayaa in la qabtay kuwaas oo isku dayayay inay ka gudbaaneen xuduudaha deegaanada Puntland kuna sii jeeda dalka Itoobiya iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya ninkan sawirkiisa idin la wadaagay oo la sheegay inuu ka soo jeedo dalka Uganda kana tirsanaa kooxda Daesh ayaa la qabtay isaga oo baxsada waxaana la xaqiijiyay inuu dhaawac ka soo gaaray dagaaladii dhex maray kooxda Daesh iyo sidoo kale ciidamada difaaca Puntland 3 xabadood ayaa la sheegay inay ku oolaayeen waxa uu rabay inuu baxsado balse gacanta ayaa lagu dhigay sidoo kalena booliska gobolka Nugaal ayaa qabtay iyaguna ninka tirsanaa kooxda Daesh kaas oo isaguna la sheegay inuu baxsad ahaa kana mid ahaa Daeshtii ka dagaalamaysay buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland dawladda Puntland oo iyadu ka hadashay waxa ay sheegtay in firxadku intaasi ka badan yahay kuna dhuumaaleysanayo magaalooyinka iyo sidoo kale deegaanada miyiga ah ee Puntland loona baahan yahay in dawladda laga caawiyo sidii loo soo qaban lahaa firxadkaasi ku dhuumaaleysanaya magaalooyinka iyo sidoo kale deegaanada Puntland dhanka kale Allah u naxariistee waxa saaka qarax miino ah oo ay dhigeen kooxda argagixisada ah ee Daesh ku geeriyooday Jibriil Guray Bootaan oo kamid ahaa ciidamada Puntland Jibriil ayaa waxa lagu xasuustaa inuu gacmaha ku qaban jiray diyaaradaha ay qaraxyada ka soo buuxiyaanin kooxda Daesh kuwaas oo soo maleegi jireen ciidamada difaaca Puntland madaxweyne Dani oo mar amaanayay Jibriil Bootaan ayaa yiri ciidamadeena geesiyada ah ee Puntland waxa ku jira rag gacmaha ku qabta diyaaradaha ay kooxda Daesh soo maleegayaan waxay taasi muujinaysa ayuu yiri madaxweyne Dani in ciidamadaynu ay naftooda kaliya aysan dalkooda u horeyna ay og yihiin in ay dhulkan iyo deegaanadan iyagu iska leeyihiin dadka ay la dagaalamayaan ay yihiin dad xaqdarre ku dagaalamaya sidoo kale xalay 2 askari ayaa ciidamada dawladda kaga dhintay diyaarad qarax siday oo ay kooxdu soo maleegtay sidoo kalena 4 askari ayaa la sheegay inay ciidamada Puntland halkaasi kaga dhaawacmeen kooxda Daesh ayaa waxa kaliya oo ay iyagu dagaalkan u isticmaalayaan ay yihiin qaraxyo iyo sidoo kale miinooyin ay u isticmaalayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn aan dhahe iyo sidoo kale miinooyin ay gelinayaan dhulka iyo sidoo kale dhirta taas oo ay uga golleeyihiin inay ku waxyeelayaan ciidamada difaaca Puntland u qalab qaatay in ay ka sifeeyaan kooxdan deegaanada Puntland
dhanka kale wasiirka amniga Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo ka hadlay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daacish ayaa yiri waxaan bogaadinayaa howlgalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ah ee Daacish oo ay wadaanin ciidamada geesyada ah ee Puntland ay kooxdaani kaga sifeynayaan buraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland ciidamadu waxa ay si nafhurnimo leh u difaacayaan shacabka iyo dhulkooda iyo sidoo kale mustaqbalka Puntland ayuu yiri wasiir Xoosh oo ka hadlay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daacish sidoo kale waxa uu yiri si kooxdan loo burburiyo waa in aan la dhayalsan hoosna loo dhigin khatarta waxaana lagama maarmaan ah ayuu yiri iskaashi midnimo iyo wadajir qaran waa in laga dheeraada khilaafyada siyaasadeed iyo wax walba oo bulshada kala dilaya lagana shaqeeyo abuurista jawi midnimo waxa uu sidoo kale yiri dagaalkani ma aha mid Puntland kali ku ah waxa uu saameynayaa jiritaanka iyo sidoo kale mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed balse madaxweyne Dani oo dhawaan hadlay waxa uu sheegay in xabad kiniini ah xitaa aysan dowladda Soomaaliya ama cid kale aysan ku darsan dagaalka ay Puntland kula jirto marka laga reebo in dadkeeda iyo shacabka reer Puntland ay garab iyo gaashaan dagaalkan ay ugu noqdeen dowladda Puntland dhanka kale xog diblomaasiyadeed ayaa sheegaysa in dowladda Itoobiya ay xabsiga dhigtay saraakiil ka tirsan hay'adaheeda sirdoonka kuwaas oo looga shakiyay inay bixiyeen nuqul la xiriira heshiiskii koodii July ee sanadkii 2024 ay magaalada Addis Ababa ku wada saxiixdeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale Muuse Biixi heshiiskan oo ahaa mid Itoobiya lagu siinayay saldhig ciidan iyo qayb kamid ah badda Soomaaliya ayaa abuuray xiisad siyaasadeed oo cirka isku shareertay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay si cad u diiday heshiiskaasi maadaama ay ku tilmaantay mid xadgudub ku ah madax banaanida ummadda Soomaaliyeed inkastoo aan wali la helin magacyada saraakiishan xiran haddana xogtan ayaa sheegaysa in saraakiishan ay wajahayaan eedeemo salka ku haya inay dowlado shisheeye ay siiyeen macluumaad ku saabsan heshiiskii ay dhawaan wada galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaas Itoobiya Abiy Ahmed daawada haddii halkan nala soo gaartay waxaan mar kale ka codsanayaa in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalkan like noo saarto sidoo kalena aan gambareelka furato si ay ku soo gaaraanin muuqaalada maalinlaha ay halka ku soo gudbino waa mahadsantiin